waxaan ka hadlaynaa saxaabiga magaca dheer ee la yiraahdo Umar bin Khattab Umar Faaruq oo ka mid ahaa geesiyaashii waaweyn ee rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo jeclaa diintana soo difaacay. intaan u sii gudagalin qisada Umar bin Khattab, fadlan janaalka subscribe garee, gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan mar walba aan soo gelino muuqaal barteena YouTube. mahadsanid. Umar bin Khattab radiyallahu anhu waxa uu dhashay 13 sano kadib dhalashadii nabiga sallallahu alayhi wasallam. nabiga ayaana ka weynaa 13 sano. Umar waxa uu ka mid ahaa afartii khulafaa ur-raashidiin, wuxuu kaloo ka mid ahaa 10kii asxaab iyagoo nool oo loogu bishaareeyay jannada. laakiin intuusan soo islaamin Umar wuxuu dhibaateyn jiray asxaabta nabiga rumaysay, una garaaci jiray ilaa uu ka daalo, waayo Umar wuxuu ahaa nin xoog badan oo geesi ah, sharafna ku lahaa Quraysh dhexdeeda, aad ayaana looga cabsan jiray. maalin maalmaha ka mid ah wuxuu go'aansaday inuu dilo rasuulka sallallahu alayhi wasallam. isagoo xanaaqsan oo seeftiisa wata ayuu aaday dhankii nebiga, balse nin ayaa ka hor yimid. markaasuu ku yidhi, xaggee u socotaa Umarow? Umar wuxuu yidhi, waxaan u socdaa Muxamed oo aan rabaa inaan soo dilo, waayo wuxuu wadaa istustus iyo diin cusub, dadkiina wuu isku diray, wuxuuna nagu tilmaamay dad aan caqli lahayn. ninkii baa yidhi, war adiga reerkaaga ka bilaaw oo canaano walaasha iyo seedigaaga. ayaa raacay oo rumeeyey Muxamed. Umar wuxuu aaday dhankii guriga walaashiis Faaduma bintu Khitaab, waxaana xilligaas la joogay guriga saxaabiga lagu magacaabo Khabaab ibnu Ard oo bari jiray qur'aanka. maalintaas wuxuu barayay suurtuddaa. markii ay maqleen Umar shanqartiisa ayuu dhuuntay Khabaab. hase yeeshee markuu soo galay Umar wuxuu yidhi, guuxiina ayaa maqlaayay, maxaad akhrinayseen ii sheega? waxay ku jawaabeen, waan iska sheekaysanaynay. balse wuu diiday arrintaas, wuxuuna kala tuuray uu gacan u qaaday seedigiisa oo ahaa ina adeerkiis. Faaduma ayaa istiri ka celi, iyadana wuu dharbaaxay. kadibna waxay sheegeen runta, waxayna dhaheen, anaga waan islaamnay, warqaddan ayaana akhrinaynay. Umar warqaddii ayuu qabsaday, wuxuuna akhriyey suuratuddaa. aad ayuu u jilcay qalbigiisa, wuxuuna yidhi, macaan badanaa hadalkan. markiiba wuxuu aaday dhankii rasuulka sallallahu alayhi wasallam, wuxuuna qabsaday ashhaadka. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yaqiinsaday inuu alla aqbalay ducadiisa oo ahayd, allow Umar bin Khattab ama abijahal midka loogu jecel yahay xaggaaga soo hanuuni. rasuulka aad ayuu u farxay, balse Umar bin Khattab wuxuu yidhi, rasuulkii allow, diintan soo xaq ma ahan. haddii aan dhimano iyo haddii aan noolnahay soo xaqa kuma socono. rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi, haa wallaahi. Umar wuxuu yidhi, soo baxa, yaan la dhuumanin, xaqa aan caddaysano iyo diinteenna. kadib 2 saf ayay noqdeen asxaabta. mid waxaa hoggaamiye u ahaa Umar bin Khattab, midka kalena waxaa hoggaaminayay Xamza oo loo yaqaano Asadullah. maalintuu Umar bin Khattab islaamay wixii ka dambeeyey lama qarsan jirin islaamidda, ee kacbada ayay ku akhrisan jireen qur'aanka, kuna dukan jireen salaadaha. Umar waxaa ka horeysay oo hortiisa islaamka galay 39 saxaabi, wuxuuna islaamay sanadkii 6aad ee bicithada rasuulka sallallahu alayhi wasallam. markii ay dhibaatadii ku siyaatay muslimiinta, nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku amray inay hijroodaan. asxaabta dhuumasho ayay ku hijroodeen, laakiin Umar bin Khattab ma uusan ku bixin qarsoodi iyo dhuumasho, ee asagoo lebisan oo seeftiisa wata ayuu soo dawaafay kacbada 7 jeer, wuxuuna tagay maqaamu Ibraahim oo ku soo dukaday salaad. kadib ayuu aaday meeshii ay ku kulmi jireen mushrikiinta, iyagoo fadhiya dhammaantood ayaa wuxuu ku yidhi, ninkii rabo inay naagtiis asay qaado oo ilmihiisa ay naqdaan agoon, hooyadiisana ay wayso wiil, ha i soo raaco. wuuna baxay Umar bin Khattab, magaaladii Madiina ayuu tagay. Umar bin Khattab ilaah ayaa karaameeyey, wuxuuna dhihi jiray, dumarka ha xijaabtaan rasuulkii allow. waa intay soo deganin aayaddii xijaabka. habeen habeenada ka mid ah ayaa sawda soo baxday iyadoo rabta inay soo xaaji gudato. Umar baa arkay oo yidhi, waan kuu jeedaa sawda, ee baxgal gurigaaga. nebiga ayay ku dacwaysay, wuxuuna yidhi, nebiga Umarow, iska dhaaf, ha baxdee. Umarna wuxuu yidhi, rasuulkii allow, xijaab. isla markiiba waxaa soo degatay aayaddii xijaabka. sidoo kale maalin maalmaha ka mid ah Umar wuxuu u yimid rasuulka, wuxuuna ku yidhi, rasuulkii allow, sidee u aragtaa haddii aan ka dhigana maqaamu Ibraahim meel aan allah subxaanahu wa tacaala ku caabudno? isla markiiba waxaa soo degatay aayaddii faraysay inay ku dukadaan muslimiinta maqaamu Ibraahim.